السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلن وعن داوديال meel kasto aad joogtaan halkan waa janalka Al-Hurriya News waxaad ku soo dhawaataan qodobada ugu doorka roon wararka aan idiin hayna xilligan. Khayray Sabriye oo isku khilaafay dhismaha baarlamaanka maamulka Galmudug. Puntland oo war ka soo saartay kulankii dhaxmaray madaxweyne Dani iyo Yamamato. musharax xildhibaan oo kursigiisa ku waayay sawir uu la galay xildhibaan Axmed Macalin Fiqi. baarlamaanka cusub ee Galmudug oo kulankiisii ugu horeeyay maanta yeelanaya ciidamada dawladda oo howlgal gaar ah ka fuliyay Muqdisho. Hirshabeelle oo u digtay dadka banaanbaxyada ka dhiga deegaanada maamulkaasi iyo dibadbaxyo rabshado wata oo gilgilay Tehran. qodobada iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan wararka janalka Al-Hurriya News. haddii aad janalka ku cusub tahay fadlan subscribe inoo saar gambaleelkana furo si aad u heshid wararka warbixinada 24 saac halkan aanu soo gelino. ismaqal iyo daawasho wanaagsan saaxiibayaal, soo dhawaada qodobada aad maqasheen oo intaasi ka faahfaahsan iminka ayaan idiin soo gudbinaynaa. Khayray Sabriye ayaa isku khilaafay dhismaha baarlamaanka maamulka Galmudug. waxa ay soo taraya wararka sheegaya in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka Cabdi Maxamed Sabriye ay isku khilaafeen dhismaha baarlamaanka Galmudug xildhibaanadiisa badankood oo la shaaciyay jimcihii la soo dhaafay. warar ay heshay Al-Hurriya News ayaa sheegaya in wasiir Sabriye rajo uu ka qabay in la qanciyo beelaha tabashada qaba iyadoo ay ka qayb qaadanayaan odayaasha dhaqanka iyo xildhibaanada ku jira baarlamaanka Soomaaliya, balse aysan dhicin in go'aan lagu xallinayo la qaato cabashada dadkaasi. sidoo kale dadka halkaasi ku dhaqan qaarkood oo aan la hadalnay ayaa sheegay in wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya uu jimcihii ka soo dhaqaajiyay Dhuusamareeb kadib markii uu sheegay in uusan waxba u haynin odayaasha qaar oo looga baxay ballamihii uu ka qaaday, mana cadda in uu dib ugu laabtay iyo in kale. beelaha Sacad iyo Saleebaan iyo Dir iyo kuwa kale ayaa cabasho xoogan ka qaba sida loo maray xulista baarlamaanka cusub ee maamulka Galmudug, waxayna qaarkood ku doodayaan in lagu farageliyay soo xulista, waana sababta keentay in wasiirka uu ka caroodo go'aanka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo guddiga farsamada ay qaateen jimcihii la soo dhaafay. xogta aanu helayna ayaa sheegaysa in wasiirka uusan ka warqabin ku dhawaaqitaanka baarlamaanka, balse uu ku howlanaa sidii uu u xallin lahaa dhowr beel oo cabasho ka qabtay xildhibaano aan badnayn oo ku jira liiska, balse isagoo aan ka warqabin ayaa liiska la sii daayay. si kastaba xaaladda Galmudug ayaa u muuqata in ay dhinac u sii dhacayso kadib rafaad dheer oo soo jiitamayay 7 bil ee ugu dambeysay. dad badan ayaa go'aankan u arka qalad, halka qaarkoodna dadka ku dhaqan Galmudug ay u arkaan go'aankan inuu yahay mid aan laga fursan karin oo xilligan loo baahnaa. weli waxaad daawanaysaan wararka janalka Al-Hurriya News. ismaqal iyo daawasho wanaagsan ayaan idin leenahay saaxiibayaal. Puntland ayaa war ka soo saartay kulankii madaxweyne Dani uu la qaatay Yamamato. madaxtooyada Puntland ayaa war cusub ka soo saartay kulankii madaxweynaha maamulkaasi Siciid Cabdilaahi Dani iyo safiirka Mareykanka u jooga Soomaaliya Ambassador Donald Yamamato. kulanka ayaa ka dhacay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari sida lagu sheegay qoraalka. madaxweynaha Puntland Siciid Cabdilaahi Dani ayaa qaabilay safiirka dawladda Mareykanka ee Soomaaliya u fadhiya Ambassador Donald Yamamato iyo wafdi uu hogaaminayo oo booqasho ku yimid magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. sidoo kale war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in kulankan looga hadlay arrimo ay ka mid yihiin xiriirka Puntland iyo Mareykanka, la dagaalanka argagixisada, xaaladda guud ee siyaasadda Soomaaliya, dhaqaalaha, deyn cafinta, doorashooyinka 2020 ilaa 2021. madaxweynaha Puntland Siciid Cabdilaahi Dani iyo safiirka dawladda Mareykanka u fadhiya Soomaaliya Donald Yamamato ayaa waxa ay si gaar ah uga wada hadleen sidii loo xasilin lahaa xaaladda amniga deegaanada maamulka Puntland oo muddooyinkii la soo dhaafay ay ka dhaceen dhibaatooyin badan oo la xiriira dhinaca amniga. Donald Yamamato iyo sidoo kale madaxweyne Dani ayaa isla gartay in laga wada shaqeeyo xaaladda amniga deegaanadaasi iyo sidii loo kobcin lahaa dhaqaalaha deegaanada maamulka Puntland. safarka Yamamato ayaa noqonaya kii labaad ee uu ku tago Puntland, isagoo sanadkii hore sidan oo kale ugu tagay booqasho gaaban. Puntland ayaa ka mid ah maamulada sida weyn uga soo horjeeda hanaanka ay wax ku wado dawladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan qaabka loo wajahayo doorashada soo socota ee
2021 dhici doonta. weli waxaad daawanaysaan wararka janaalka Al-Xurriya News. ismaqli daawasho wanaagsan ayaan idin leenahay saaxiibayaal. musharax xildhibaan ayaa kursigiisa ku waayay sawir uu la galay xildhibaan Axmed Macalin Fiqi iyadoo gelinkii dambe ee shalay la dhaariyay inta badan xildhibaanada baarlamaanka labaad ee Galmudug ayaa waxa isu soo taraya cabashooyinka dhan waliba leh ee laga qabo qaabkii loo soo xulay xubnahaasi oo gaaraya ilaa 83 xildhibaan. Ibrahim Xasan Cawaale waxa uu ka mid yahay musharaxiintii u tartamayay kuraasta degmada Ceelbuur ka soo galaya baarlamaanka maamulka Galmudug, balse 4 maalmood ka hor inta aan la guda gelin soo xulidda kuraasta degmadaasi ayaa lagu wargeliyay in uu yahay nin lagu helay wax uu ku tilmaamay aayatul munaafiq. Ibrahim ayaa sheegay in ay la soo xiriireen xubno ka hoos shaqeeya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre, isla markaana ayna ku wargeliyeen in uusan u tartami karin kuraasta degmada Ceelbuur oo uu deegaan ahaan ka soo jeedo, xaqna uu u leeyahay in uu ku matalo baarlamaanka maamulka Galmudug sida uu sheegay. sababta Ibrahim looga hor istaagay in uu u tartamo kursiga deegaankaasi waxa uu ku sheegay in ay tahay sawir uu sanadkii hore la galay xildhibaan Axmed Macalin Fiqi kana tirsan golaha shacabka, mucaaradna ku ah xukuumadda hadda talada hayso oo garwadeyn ka ah doorashooyinka maamulka Galmudug. musharaxa is hor istaaga lagu sameeyay isagoo u waramayay mid ka mid ah warbaahinta ka howlgasha magaalada Muqdisho ayaa sheegay in Fiqi uusan u lahayn aqoon gooni ah, balse xilliga sawirkaasi uu la galayay ay ku kulmeen hotel ku yaala magaalada Muqdisho oo lagu soo bandhigayay buug uu qoray Cabdicasiis Xildhibaan. sidoo kale Ibrahim bartiisa Facebook ayuu ku soo daabacay qoraal dheer oo uga hadlaya arrintaasi, waxa uu sheegay in buugga la soo bandhigay xilligaasi looga hadlayay waxyaabaha xildhibaan Cabdullaahi Gaafow oo uu sheegay in uu taageero weyn u hayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre. waxa uu sheegay in arrintaasi ay tahay mid xilligan aysan habboonayn in dawladdu ay sidaasi u dhaqanto, loona baahan yahay in xildhibaankaasi iyo xildhibaanada la midka ah ay kuraastooda baarlamaanka ay ku leeyihiin ay helaan. markana baarlamaanka cusub ee Galmudug ayaa kulankiisii ugu horeeyay yeelan doona. maanta ayaa lagu wadaa in xildhibaanada cusub ee baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Galmudug ay yeeshaan kulankoodii ugu horeeyay, isla markaana ay uga hadlayaan arrimo dhowr ah. xildhibaanada ayaa inta ay ku jiraan kulankooda waxay si ku meel gaar ah u dooran doonaan qofka ugu da'da weyn ilaa iyo inta ay dooranayaan gudoomiyaha baarlamaanka cusub ee maamulka Galmudug. sidoo kale xildhibaanada ayaa dhexdooda waxa iska soo xuli doonaan guddi doorasho kaasi oo asteynaya hanaanka iyo habraaca doorashooyinka gudoomiyaha baarlamaanka ee maamulka Galmudug. amniga magaalada Dhuusamareeb ayaa aad loo adkeeyay, waxaana sidoo kale halkaasi ka soconaya kulamo xasaasi ah iyo loolan loogu jiro ka mid noqoshada 6 xubnood ee ka harsan baarlamaanka maamulka Galmudug. ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa howlgal gaar ah ka fuliyay magaalada Muqdisho. ciidamo ka tirsan booliska Soomaaliya ayaa waxa ay xalay howlgal dad badan lagu soo qabtay ka sameeyeen xaafado ka tirsan degmada Boondheere ee gobolka Banaadir. ciidamada oo watay gaadiidka noocyadiisa kala duwan ayaa waxa ay howlgalka ka sameeyeen xaafadaha ku teedsan laga bilaabo isgoyska taalada Daljirka Dahsoon ilaa 4 darjiino, waxaana howlgalka lagu soo qabtay dad u badan dhalinyaro. ciidamada ayaa intii ay howlgalka ku jireen waxa ay mararka qaar galayeen guryaha qaarkood, waxaana la sheegay in ciidamadu dad ay ka wateen guryo ku yaala agagaarka tabeelaha jacaylka. dad ku sugnaa xilliga howlgalka uu socday qaybo ka mid ah degmada Boondheere ayaa waxa ay Al-Xurriya News u sheegeen in ay arkayeen tiro dhalinyaro ah oo ciidamadu ay ku wateen gaariga shabaqlaha ah ee shaqaalaha, kuwaasi oo la qabtay intii howlgalka uu socday. laamaha amniga weli ma aysan faahfaahin waxyaabaha howlgalkaasi ay ku soo qabteen, ha yeeshee toddobaadkii la soo dhaafay ayaa ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay howlgal ka fuliyeen degmooyinka Warta Nabadda, Waaberi, Xamar Jajab, Xamar Weyne, iyadoo xalay ay ugu dambeysay howlgalka degmooyinka laga fuliyay degmada Boondheere ee gobolka Banaadir. Hirshabelle ayaa u digtay dadka banaanbaxyada ka dhiga deegaanada maamulkaasi. wasiir ku-xigeenka amniga dowlad goboleedka Hirshabelle xildhibaan Geelle Isaaq Warsame ayaa sheegay in dadka ku nool magaalada Buulobarde looga baahan yahay in ay iska daayaan hadallada ka soo yeeraya dad uu sheegay in dana gaar ah ay leeyihiin. waxa uu sheegay in bulshada marnaba aysan ka banaan bixin dad xil laga qaaday oo doonaya dana siyaasadeed, kuwaasi oo la soo hadla hase yeeshee ay soo bandhigi karaan baahidooda. wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga maamulka Hirshabelle Geelle Isaaq Warsame ayaa sheegay in marnaba laamaha amniga aysan ogolaan doonin
banaanbaxyo ay dhigaan dadka shacabka ah taasi oo keeni karta falal amni darro isaga oo digniin u diray dadkaasi hadalka wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga ee Hirshabelle ayaa daba socda xilli dhawaan banaanbax ay dhigeen qaar ka mid ah shacabka degmadaasi ayna sababeen banaanbaxyadaasi in ay ka dhashaan khasaaro iskugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu dambeyntiina daawadayaal wararka dibadda haddii markana aanu eegno dibadbaxyo rabshado wata ayaa gilgilay dalka Iran boqolaal dadweyne ayaa iskugu soo baxay wadooyinka waaweyn ee caasimadda dalka Iran kuwaasi oo dalbanaya in uu iscasilo hogaamiyaha dalkaasi Ayatollah Ali Khamenei dibadbaxayaasha ayaa ka careysan diyaaradii dhawaan ay soo riday dowladda Iran taasi oo Iran ku sheegtay in ay u soo dhacday si kama ah dibadbaxyada ayaa waxa ay ka dhacayaan afaafka hore ee laba jaamacadood oo ku yaala caasimadda dalka Iran ee Tehran safiirka u fadhiya dalka UK magaalada Tehran ayaa dibadbaxyada lagu xiray kadib markii uu ka qayb qaatay inkastoo markii dambe la sii daayay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka dibadbaxayaasha ku dhiirigeliyay in ay sii wadaan dibadbaxyada ay kaga soo horjeedaan xukuumadda dalka Iran guud ahaan daawadayaal waa naga intaa wararkii aad kala socoteen janaalka Al-Xurriya News haddii aad janaalka ku cusub tahay fadlan subscribe inoo saar gambaleelkana furo si aad u noqotid qofka ugu horeeya ee hela wararka warbixinada wareysiyada halkan 24 saac aan soo gelino waad ku mahadsantihiin daawashada iyo la socodka warka iyaga